waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta. Maanta iyo dalxiis channelka waa Axlaam channel. Lana daa ku cusubtay subscribe saar haddii hore nala joogtay, like, comment, share. Maanta soo baxa dalxiisna la aada. Dalxiiska waa Nairobi dhexdiisa le waaye. Marka iska fiiriya wadooyinka iska barta nala dalxiisa asxaabta. waa soconaa intee loo socdaa maanta dalxiis le waaye. Maanta waxaa waaye gaari maanta lagu soconaa. oo maalin oo gaari lagu soconayo waaye oo magaalada dhexdeeda lagu dalxiisayo. Marka nala arka asxaabta. waa soconaa intee u soconaa channelka daa ku cusubtay subscribe saar haddii hore nala joogtay, like, comment, share. asxaabta Axlaam waan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan. anoo hadda gaariga iska saarno iska socdo aan waxaa isdhahay asxaabtaada la sheekayso video u duub. marka video waana idinku soo talagalay. aan idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan. channelka saara subscribe saara, like, comment, share gareeya. intaas baan usoo galay asxaabta dhammaantiin waa idin salaamay. caawadana live aa soo gali doonaa videogan hadda waxaa soo gelin doonaa hadda markaa hadda duuba waxaa soo gelin doonaa caawadaa soo gelin doonaa live-na waa soo gali doonaa. marka cidii su-aalo iga soo weydiisay su-aalihii videowadii aan soo geliyo caafimaadka ahaa jawaabahooda bixin rabaa insha allah. soo wada aruura asxaabta Axlaam waa idin sugaa caawada. channelka kor u qaada 5,000 waxaa dhiman 5,000 waxaan igaarsiiya 5,000 igaarsiiya aan idin dhahay wali ima gaarsiinin waxaa ii dhiman. ana baryahan waa ka mashquulay channelka markaa wax soo dhigi lahaa hore uu u socon lahaa laakiin wax yaraa ka mashquulay. waa ogtihiin hooyo oo ilmo haysato waa iska ogtihiin iskuul iyo dugsi loo aadayo. marka asxaabta la socda taas la socda na soo raaca maanta iyo dalxiis. maanta iyo dalxiis asxaabta dalxiisaan ku jirnaa maanta. asxaabta gabdhaha la hadlaa ma aragteen ayaamahan ilmaha Nairobi xanuuna iska jiro hergeble ilmihii hergebaa ka bixi weysan. waxaa arkaysaa isbitaalada markaa tagto ilmo kuwa la jiifiyey kuwa oo caadi u tagaa la soo celinayo gurihii ilmaha xanuunsan. ma aqaani jawiga Nairobi hergeb jawiga Nairobi isbedela u maleynaa. marka asxaabi ilmaha waxyaalo dabiiciya loo isticmaali karo oo hergebkaas la siin kara oo aajiro. marka daawooyinkan ha laga daayo. ani hadda daawooyin waaba iska daaba cunuga hergeb hadduu soo qabto daawo la ordi jiray isbitaal waaba iska daayaba. daawo waxaa siiyaa ii sheegadi waxaa isku karkariyaa sinjibiil oo khafiif ah. cunuga hadduu yaryahayna ma xamili karo laakiin cunuga haddii oo 2 sano ka weyn yahay khafiif ah iliin iyo waxaa la iskugu daraa malab aa la iskugu daraa. marka inta sinjibiilkana khafiifa ka dhigaysa malabkaas iyo waxaasaa siinaysaa feerihi iyo korkiina waxaa ka marinaysaa xabasowdadaasaa ka marinaysaa. xabasowdadana daawo waaye la socda takhaatiirta iska dhaafa gabdho. magaalada jawigeeda uu gadisan yahay ilmuhu dhanaa wada xanuunsan. marka allah noo caafiyo isbitaalada markaa tagto wallaahi gabdho badan iyo waalidiin badanaa caruurta isbitaalada la joogo. marka ii sheegadiye ilaahna caafiyo jawiga iska xun ayaantaan wallaahi ilmihii hergeb. marka asxaabteyda hadda isbitaalka hadda marayno waa kasa Getro waa hadda meesha marayno Getro hospital isbitaalka caruurta waa kasa agtiisa hadda marayno. marka caruurta allah noo caafiyo. daawooyinkan waaba laga fiican yahay inaa cunuga aa siisid liin iyo markuu qandhan yahay hadaa liin iyo waxaa la iskugu daraa. anaa daktar u ordi jiro oo geystay cunuga daktarka markaa geystay isbitaalkan oo ahaa Getro. waxaa joogay daktar oo Soomaali ah la kulmay maalinkaas weligay. marka waa tagi jiray say u badan tahay laakiin daktar Soomaali ma la kulmi jirin. daktar Soomaali waagaas fadhiyay wiil yar oo Soomaali wuxuu ugu dhahay cunuga iga qandhanaa geystay wuxuu dhahay
cunuga hadda isbitaalka keenta wax weyn ma qabo hergab lee waaye wuxuu dhahay abaa waa idinla talinaa gabdhaha Soomaaliya haddaad tihiin ilmaha wax yar hadduu idinka xanuunsadaba oo daaweyn ay ku gurayaan dadkan isbitaalada ka daaya oo taqtar weyn waaye ninkaas saas dhahay waa Soomaali wiil Soomaali walaalkii ah waaye kolba wuxuu isdhahay ii sheegadiya gabdhaha u faa'iideeyo isdhahay wax weyn hadda la ima soo sameyn ani qandhijibin iyo waxa la isoo siiyay daawo hergab bisa la isoo siiyay hal sharo baa la isoo siiyay qarash badan oo iga baxay waqti badan oo iga baxay marka asaga wuxuu ka hadlayaa waqtigaas badan iyo qarashkaas badan aad soo gelinaysiin oo isbitaalada aad soo aadaysiin iska daya marka ii sheegadiya cunuga hadduu kaa xanuunsado camal liin iyo macsaraha ahaato olive oil ha ahaato wuxuu dhahay ii sheegadiya cunuga waa wax yaraa la kuleeyaa hadduu Nairobi qabow waaye wax yaraa la kuleeyaa korkiyaa loo marinaa geesoo dhanaa laga marinaa cunuga markuu seexdo marka wuxuu dhahay haddana malabka daawadan la idin siinaa oo hergabkii waxaas la leeyahay waxaa laga soo sameeyay malab iyo liin iyo waxaas laga soo sameeyay iyo jinji oo khafiif ah marka intaas u sameynaysaa wuxuu dhahay waa kula talina wuxuu dhahay cunuga duu hergabkan saan iyo hergab la ka hayo oo qandhan yahay oo diifkaas ka soconay isbitaalkaas ka keenay cunuga haddii wax weyn qabinba oo intaas oo ayaamo kugu qaatay laakiin laba wiiga hergab qabtay cunuga isbitaalkaas ka keenay uu dhahay malabkaas iyo liintaas u sameey oo sanjibiilka khafiifka ah cunuga qaado u sameey malab wax yar ku adkay cunuga qaado ka sii uu dhahay habeenkii ka sii duhurkii ka sii asaga fiicnaanayo uu dhahay waana tijaabay waana runtiisa marka Soomaaliya taqaatirtan loo orday caruurta la geenayo waa laga fiican yahay aan ku tijaabino marka anaga ilmahan guriga ku daaweysano aan ku tijaabino marka intaasna waxaan dhihi lahaa gabdhaha igu xiran oo saaxiibada ila ah oo qaraabada ila ah oo aan ku walaalowno Ilaahay dartiisa oo maamooyinka intaasna dadaarna u sheegay waxa ani ka faa'iido waxa rabaa wixii aan la soo kulmay in asxaabteydana ugu faa'iideeyaa rabaa marka gabdhow la socda saasa jirto ayaamahan xanuunka ilmaha uu badan yahay marka ku dhaqaaleeya gabdha ilmaha ku dhaqaaleeya saa u siin lahaydeen waxyaalaha guriga idin yaalo sida xabasowdada iyo waxaa la isku dari karaa korka marka waxa loo marnaa xabasowda iyo saliid macsar mise olive oil iyo liin la isku dari karaa waa la karkarin karaa feeraha iyo jirkiya loo marnaa cunuga hergabka intaas ka adag wallahi wiilkaas maalinkaas waana soo waaniyay kadib isbitaal waana aadaa laakiin waa ka yarahay sidii hore uma aado waa ka yarahay wallahi أول تقطر له أرد جرويل كسوح وده وحان استالك أو كين سين جرينا قسمي سين كرتينه كدا يا وده المها جروها جوجان وحاس قسمين والله وكفا إذا ويل كاس أولا وها يوان السلامة يا تقطر في عنو أها نمبر كيس أساسي مركا وحده وحان إذن كسميني سين هدي وحكا وإسوي كرتا وده سؤال ويدين كرتا هذا نقوم هذنا مرة وعي سؤالنا كويديون إي جوابي مركا كدبنا مرة رأيهات اسمع أركن لكن dadkan kale